waxay u badnayd gabyaaga Soomaaliyeed markuu habaaramayo ruux ka gardaraaday oo isaguna Soomaali ah inuu habaaro. ha yeeshee qarnigii 20aad barkiisii hore ayaa maansada Soomaalida waxaa ku soo biiray habaar nooc kale ah oo hal abuurada qaar ka mid ah ay soo rogeen. waxaan u jeedaa iyada oo dhib laga tirsanayo habaarka lagu halgaado dawlad hebla kaasoo gumaysigii reer Yurub ka hor aan ku jirin ujeedada habaarka ee maansadeena kalaasiga ah. waxaan haddaba barnaamijkan iyo midka xigaba ku soo qaadi doonaa habaarka noocaas ah oo geeraar iyo gabay loo xambaariyey ayna kala tiriyeen laba maansayahan oo meelo aad u kala fog ku kala noolaa si isku waaye ahaa. kolka horese maanse walba sababta loo tiriyey baa la sheegay balaan maanta geeraarka iyo siduu ku yimid idiin soo hormariyo. taariikhda casriga ee geeska Afrika sida laga akhrisan karo waqooyiga ka sokow Ingiriisku qayb ka mid ah koonfurta dalka ayuu intii muddo ka talinayay. waa dhulkii Jubbaland loo aqoon jiray oo u dhaxeeya magaalooyinka Kismaayo iyo Doolow galbeedka webiga Jubbana ku yaal. dhulka soohodinta la leh geeyiga Soomaaliyeed ee waagii Ingiriisku haystay NFD ku magacawnaa haatanse waqooyi bari Kenya loogu yeero. sida la xusuusan yahay heshiisyadii kolba dhex mari jiray gumaystayaashii reer Yurub kuna saabsanaa qaybo ka tirsan dhulka Soomaaliyeed waxaa ka mid ahaa dagaalkii koowaad kadib mid dawladda Ingiriiska iyo Talyaanigu ay kala saxiixdeen. markiisii horeba Ingiriisku wuxuu Jubbaland ka ijaartay carabtii Sanjibaar ka talin jirtay ee reer Cumaan. dabadeedna wuxuu ku bedeshayba sanadkii 1926 ayuu ku wareejiyey dawladda Talyaaniga maantaasoo koonfurta Soomaaliya oo idili ay Rooma u gacan gashay. waa yaabe Jubbaland siday u ahayd dhul uu Ingiriis ka taliyo ayay Soomaalidii deganeed goor subaxa soo toostay iyada oo uu Talyaani ka talinayo. waa amankaaga inkastoo ay iyagu dalka lahaayeen haddana carabtii reer Cumaan mar ay ka mulkiyeen lama socodsiin. waagii ay Ingiriiska ku wareejiyeenna looma sheegin. markii dambana cidda xukumaysa lagama talagelin sida loo xukumayana lagalama tashane labadii awoodood ee reer Yurub ayaa midiba moogeeda sumadeeda ku dhigatay gardarro badana. si kastaba ha ahaatee dawladdii Talyaanigu si degdega ayay gobolka ula wareegtay. Kismaayo oo awalba oo Ingiriisku ka maamuli jiray ayaa mar kale xarun u noqotay waxayna u soo magacowdeen sarkaal darajadiisu sarreyso oo u maamula. kaasina wuxuu istusay inuu hawshiisa ka bilaabo diiwaangelinta hodantooyada dhaqaale ee gobolkan ay dhawaanta la wareegeen uu leeyahay. markaabuu ku dhaqaaqay siduu ku ogaan lahaa dadka iyo xoolaha ku nool tiradooda. maalintii dambe ayuu sadcaal ku yimid deegaanka Gadood oo ka tirsanaa Jubbaland halkaasoo uu ku sirsaday qabaa'ilkii dhulkaa ku dhaqnaa odayadii madaxda u ahaa. wax badan buu maanta u sheegay hase ahaatee arrinta keliya ee dareenkooda gilgishay waxay ahayd markuu ku amray in qoys waliba uu soo tiriyo geela xeryaha ugu jira dabadeedna tiro guud ay odayadu si degdega ugu soo gudbiyaan maalin heble iyo meel hebla. raggii meesha fadhiyey argagax baa ka meel waayey maamuluhuse ma dareemin. guurtidii goobta ku sirsanayd umal baa saaqay maamuluhuse ma dhaagin. waxay garan waayeen waxa uu geela ka rabo. dantii uu arrinta ka lahaa si fiican uguma uu sheegin. haddii uu u sheegana ma ay garteen, haddii ay gartaanna kama ay garaysteen. turjubaankii oo weli warkii maamulaha u soo gudbinaya ayay inta ka sii jeesteen waxay hoos isu weydiiyeen war Ingiriisku xoolaha aan haysanno iyo noloshayada hoose ma faragelin jirine maxaa ninkan nagu maagay. dadka uu u yimid inuu u taliyo dhaqankooda ayaa ka daahnaaye haddii uu hiddahooda wax ka aqoon lahaa maamuluhu marnaba tirada geelooda ma weydiiyeen. wax kaleba yeelkooda ninka Soomaaliyeed lama haybin jirin geela xeryaha ugu jira inta uu la eg yahay iyo tirada wiilasha uu dhalay gaar ahaan kuwa markaa u nool. lama weydiin jirin. haddiise inta lagu dhiirado la weydiiyo kama uu jawaabi jirin. waxay ka baqi jireen in la cawriyo in hantida iyo wiilasha lagu kuumiyo dabadeedna isha lala helo oo inta afka iyo carabka lagu qabto laga kala dhantaalo. haddiise inta aad loo doocdoociyo ayba dhacdo su'aalahaas oo kale inuu ka jawaabo waa la dhaqan yahay ayuu oran jiray hadduu geeliisa ka hadlaayo. haddii tirada wiilasha la haybiyana rag waa joogaa alxamdulilah ayuu ku gaabsan jiray. iyada oo aan la isu caloolfayoobeyn ayaa garabtaa shirkii lagu kala dareeray. amarkii maamulaha ee ahaa geela soo tiriya isla habeenkiiba meel walba ayuu ka dhacay. odayadii haddii ay arrin isugu noqdeenna yeeli mayno ayay tala kaga ibabeeshay. waase la baqayaayo ciidan Talyaani ku soo dhardhaaro daafaduma hayaan. maxay kolka yeelaan? allabari aan kala joogsi lahayn ayay guddoonsadeen. shir aan loo kala kicin ayay isugu dhawaaqdeen. sheekh hebel ha la doono ayaa la isku guubaabiyey. markaas baa la bilaabay bundubasho iyo quraan akhris asma looga gol lahaa oo maamulaha Talyaaniga lagu dhaawanayo.
dhinaca kale maya oo qura in laga roon yahay intay istuseen ayay ugaaskii reeraha Kismaayo u direen si uu maamulaha uga soo dhaadhiciyo amarkiisa inuu ka noqdo. dhowr toddobaad kadib ayuu ugaaskiina soo laabtay. shir weyn oo lagu wareysanayo ayaa la wacay. gabyaagii caanka ahaa Guuleed Jucfa Samatar oo ka mid ahaa raggii maantaa joogay ayaa lagu yidhi Guuleedow ugaaska noo warayso. halkaas buu isna ka bilaabay geeraar uu ku wareysanayo isla markaasna uu uga waramayo intii uu sodcaalka ku maqnaa wixii degmada ka dhacayay oo quraan akhris iyo asma aha. ugaaskii wuxuu madashii ka sheegay Talyaani inuu ka wado maya iyo amar dawlo mar hadduu soo baxo waa la fuliyaaye kaxaajoo dambe ma laha. dabadeedna geeraarkii waraysiga ahaa markuu dhammeeyey ayaa raggii goobta joogay oday ka mid ahi wuxuu ku yidhi Guuleedow afku leeblaa tahay Talyaani habaaro si gaara maamulaha gowska ugu qabo 100 halaad baa lagu siinay. markaas buu isla xarafkii inta ka qaaday ee baweyne ammaantiisa ku bilaabay isaga oo isla markaana ka mahadnaqaaya barwaaqooyinka aan la tirin karin ee uu aadanaha ku bantookay. wuxuu yidhi maalintii dad la uumay oo nebi aadan dushiisa loo ekaaday quraanyo ilaahay asmaceenna shahaada ka yeelay abaal baan la gudaynaa asxaan waa ka qabnaa. ayaantii ka dambaysay oo ay qurayshtu dhowday oo odayaasha la laayay oo dulqafaar rag afaystay ilaahay nuura udgoone ummadii naga yeelay abaal baan la gudaynaa asxaan waa ka qabnaa. ilaahay afarnaas iyo ib yaroo ka daloosho abeen looga caddeeyayoo amarkiisa ku yeelay abaal baan la gudaynaa asxaan waa ka qabnaa. ilaahay sawjad islaam oon aadmi nooga sokaynin aqid noogu xariiqay oo dabadeed ilmihii iyo ubadkii naga siiyey abaal baan la gudaynaa asxaan waa ka qabnaa. ilaahay axdoori ka abuuray candhuufo dabadeed indhihii iyo afka noo kala qaaday oo adin xoog lana siiyey abaal baan la gudaynaa asxaan waa ka qabnaa. ilaahay ebedkii iyo aalihii ka korreeyey iyo ishaad diinta u yeelayoo noogu dhiibay ikhwaanka abaal baan la gudaynaa asxaan waa ka qabnaa. ilaahay ajasheenna indhaheenna ka duugayaan aleenkoora u yeelin iimaan nooma sugmeene abaal baan la gudayne asxaan waa ka qabnaa. markaabuu u daadegayaa ujeeddadii geeraarka oo ahayd inuu ku habaaro dowladda Talyaaniga iyo maamulihii inay geelooda soo tiriyaan ku adkaystay. wuxuu yidhi gabayse waa afkuleeble wadaad waa akhrigiisa gobi waa taergeysa ilaahay cirka uumay oo dhulka hoos ka asraxshayow ilaahan amarkiisa aadni diidi karaynow ilaahow nin uraayo nebi aadan ka leexdaan arrinkii isu keennay ilaahow ingiriis iyo amxaartii shawo joogtiyo suldaan ruun ka adeejiyo udubkiisa la siibo rag armaatiga qaatow naxariis ilha saarin ciidii baanda ahayd iyo goglahow ka idlaada aqiidka iyo bandaaskow ibliis haydin dhammeeyo afnaqa iyo boygow asma beelka ku goysay siinka meel walba aadow irid ha u dhaqdhaqaaqin baabuurkay ordiyaanow omos meela la jiibso markabkii badda aadow irjic meel isu taag dadkuse waa kala ooda ninka geela afsaartayow ayaantan aynu joogno ayaanteeda kaleeto amarkaagu ma gaaro oo asma beelka ku goysanadan dadkii goobjoogga u ahaa siday sheegi jireen maalmo tiro yar kadib ayaa Guuleed habaarkii qayb ahaan laga aqbalay. si degdega ayaa maamulihii ay ka cabanayeen Jubbaland looga bedelay. taasi wax ma ahayne habaarka intiisii ugu ba'nayd dowladdii Talyaaniga ee xilligaa jirtay ayaa loo kaydiyey. 15 sano kadib ayuu inta ku habsado geesaha u dhigi doonaa. waa sida reer gadoodku ay sheekadan ku dhameeyaan. barnaamijkii toddobaadkii hore waxay idinku maqasheen geeraar habaar ah oo allaha u naxariistee gabyaagii la oran jiray Guuleed Jucfe 1926 ku habaaray dowladdii Talyaaniga ee xilligaa dhisnayd iyo gaar ahaan maamulihii ugu horreeyey ee Jubbaland ay u soo magacowday kadib markii Ingiriisku uu gobollada ku wareejiyey. sidii aan barnaamijka ku faahfaahiyey Guuleed iyo dadkii uu afkooda ku hadlaayay waa tii ay si aada uga dideen amarkii maamulaha ee ahaa geela aad haysataan soo tiriya taasoo Soomaalidii waayadaas aan dhaqankeeda ku bannaanayn. maantaana waa tuu Guuleed ee baweyne ka bariyey in Talyaani u jabo qaramadii ay colka ahaayeen huf iyo halaan jirin inay ciidamadiisu ku dambeeyaan baabuurta iyo maraakiibtuna ay u dhaqaaqi waayaan. waa tuu gabyaagu habaarkiisii ku dambaysiiyey si gaar ahna ugu halgaaday amarkii uu ku soo saaray maamulihii ay bulshadu ka sastay aadna ay uga anfariirtay. si degdeg ah waa tii kolkaa maamulihii loo bedelay. barnaamijkaana waataan ku soo gabagabeeyey habaarkii Guuleed intiisii ugu ba'nayd in dowladdii Talyaaniga ee xilligaa jirtay loo kaydiyey 15 sano kadibna uu haleeli doono. waa sida dadkii gobolkaas ku noolaa ay rumaysnaan jireen. Guuleed ka sokow waxaa isaguna jiray maansayahan kale oo laba degaan oo kala fog ay ku kala noolaayeen asi ay isku gada ahaayeen isla markaana habaarka dowladda Talyaaniga ay isaga ekaayeen.
waxaa lagu magacaabi jiray axmed maxamed wuxuuna ku noolaan jiray magaalada berbera ama agagaarkeeda. habaarkiisii wuxuu axmed u xambaariyey gabay waagii dambe si baahsan caan u noqday oo inkastoo aanu tiro badnayn haddana dhulka soomaalida wada maray. su-aashuse waxay tahay, goormo ayuu gabaygaa tiriyey, maxaase ku dhaliyey? waa moogaan sheekada uu barnaamijkan oo idili ku saabsan yahay. si aydun haddaba dhab ugu garataan wixii axmed maxamed iyo talyaani isu geeyey, aynu xoogaa dib u milicsano taariikhda casriga ee geeska afrika iyo waayihii soo maray ee isbedelada badnaa. iyada oo horeyba u haysatay dalalka soomaaliya iyo eritrea ayay dowladdii fashiistada ahayd ee talyaanigu waxay 1935 weerar ballaaran ku qaaday dalka etoobiya, kaasoo ay madaha kaga aarsanaysay 40 sano ka hor jabkii xasuuqa u ekaa ee xabashidii boqor menelik ay ku dhigtay ciidamadooda. waxay ahayd guutooyinkii labada dhinac goobtii ay fooda isku dareen ee cadwa loo yiqiin, goobtii ay roomi ku guuldaraysatay ee dhacday sanadkii 1896. sabab kastaaba duulaankaa isaga ah ku riixdee si deg dega ayuu talyaanigii dacal ilaa dacal etoobiya oo idil gacanta ugu dhigay, isaga oo howlgelinaya askar ciiddaas masaalkeeda oo caddaan iyo madowba lahayd, soomaalisa u badnayd. askartaas iyo baabuurtii gaashaanayd ka sokow waagii baryaba dayuurado ugaarsada ayuu guutooyinkii xabashida ku soo kiciyey, kuwaasoo ciidamadoodii 4 garjaho u kala firdhiyey. meeshii ay u guuraan iyo meeshii ay ku gabadaanba intay kaga daba tageen bayna kaga dhigeen. bilo dhan bay madaxa kor u qaadi waayeen. ugu dambaystiina hubkiibay inta daadiyeen janannadii talyaaniga boqol isugu dhiibeen. boqor xayle salaase iyo qoyskiisii waa waagii ay naftoodii u baqeen, dabadeedna ay carriga ingiriiska qaxa ku tageen. askartii soomaaliyeed ee baandada ahaydna waa markay inta dhaantada qabsadeen ay odhan jireen, amxaara jabta oo jug baa ku dhacdo jigjiga jananaarkii baa degay. allaha u naxariistee gabyaagii la odhan jiray maxamuud cali beenaley oo waayadaa deganaa meelihii ay dagaaladaasi ka dhacayeen waa markuu isaguna la amankaagay awooddii ciidan ee talyaanigu goobaha ka muujiyey. dabadeedna uu lahaa sintuu dhigay amxaarkii lahaa seerahan jebinne kolka adigu soomaaliyey qaada samirkaaga oo dhaha sinyorow nadaah waanu soo geliyey. maalintaas buu inta aad isu mahdiyey talyaaniga wuxuu isbiday inuu yahay awood reer yurub ah oo aan sina uga dhicin kuwii kale ee ummadihii taagta daraa kala qaybsaday sida ingiriiska iyo faransiiska. markaas buu etoobiyadii u dhowaanta hantiyey halhaleel ugu darsaday soomaaliya iyo eritrea oo sidaan soo sheegay ahaa meelihii uu gobolka horey uga haystay. dabadeedna iyaga oo aad mooddo inay u hilowsan yihiin imbaraadoriyadii roomaanka ee beri hore magaalada rooma ay xarunta u ahayd, ayay hogaamiye benito mussolini iyo sareeyayaashiisii ciidamadu waxay wadajirka dhulkii gacantooda galay ula baxeen africa orientale italiana oo macnaheedu yahay afrikada bari ee talyaanigu mulkiyo. maxaase ka dambayn? iyada oo arrin ay halkaa marayso ayuu 1939 dagaalkii labaad ee dunidu yurub ka qarxay. wuxuu ku bilowday jarmal iyo talyaani oo isku jaal ah iyo ingiriis iyo faransiis oo isku dhinac ah, gaashaanbuurna la baxay. haddiiba bari iyo galbeed yurub inteedii badnayd gacantii jarmalka ayay ku dhacday. lama degaanada masar iyo libiya ayay haddana ingiriiska iyo jarmalku fooda isku dareen. hal sano kadibna goobihii ay dagaaladu ku fideen waxaa ka mid noqotay afrikada bari oo ingiriiska iyo talyaanigaba ay ciidamo xoog lihi ugu urursanaayeen. dhacdii horeba waqooyiga oo ingiriisku haystay ahaana geeska afrika oo idil halkii uga harsanayd ayuu talyaanigii ku dhabaabaceeyey, haddiibana gacanta ku dhigay. berbere iyo hargeysa ayay ciidamadiisii salka dhigeen oo xeryo ciidan ka samaysteen. maantaas bay inta baadheer gashadeen or iyo geeraar u baxeen. wax dimuqraadiyadda ku xajiimooda oo faashi ah ayay ahaayeen. gacan naxariis daran ayay soomaalidii waqooyiga ku qabteen. qofkii ay ka shakiyeenba maxkamad la-aan bay ciqaab kulul ku soo rogeen. maamulkii cararay ee ingiriiska raggii ka shaqayn jiray ayay indho gaara ku eegeen. wixii ay u maleeyaan inay weli xiriir la leeyihiinna xabsiyada ayay ka buuxiyeen. isla beryahaasba maraakiibtii dagaalka ee ingiriiska ayaa badyaradii cadmeed iska soo buuxisay si ay isu hortaagto hub iyo badeeco wixii soo geli lahaa dhulalkii uu talyaanigu ka telinayay. maantaas baa gaajo lala wada taahay, arad baa lala kala dhuuntay, daranyo iyo dandaraa lala wada tiicay. markaas baa ilaahuw talyaani kol naga kaxee hoos loogu ducaystay. saa in lagu dheeraysto laguma dhici karin. waa halkaan haddaba gabyaagii aan soo magacdhabay ee axmed maxamed la oran jiray iyo talyaani halkii ay iskala qaadeene
bal dhegta u dhig. Waa tahay axmed maxamed isaga oo ka mid ahaa reer waqooyigii ku darxumooday gumaysigii talyaaniga ee dhowaanta qabsaday ayaa haddana waxaa isaga u raacday dhibaato ku gaar ahayd. wixii ay ku maageenna looma sheegine wiil ina axmed ah ayaa ciidamadii talyaanigu berbera ku xidheen. kolkaas buu waa beer wax dhalae wuxuu isa sii taagay xafiiskii taliyihii talyaanigu uu wax ka maamulayay, kana codsaday in wiilka loo soo daayo. waa laguu sii dayne berri u soo noqo ayuu taliyihii ugu qalbi qaboojiyey. dabadeedna ballantaa ahayde axmed waa berigii buu isa soo dhigay. markaas buu taliyihii u yeedhay ilaaliyihii xafiiskiisa oo ku yidhi, xabsiga tagoo wiilka hebel la yidhaahdo ha la ii keeno si aan aabbihii u raaciyo. wax yar kadibba askarigii oo keligiisa ayaa inta ku soo noqday taliyihii ku yidhi, sinyoore, inankii aad ii dirtay maxaabiistii shala garab harar loo qaaday ayaa lagu daray. markaas baa odaygii miyir ugu dambaysay. cirkii iyo dhulkii baa isaga darmay. xafiiskii buu ka luuday isaga oo aan garanayn meeluu u socdo, isaga oo sidii carsaaryada hadba dhinac u dilaamaya. dabadeedna derbi daarnin carabi ahaa intuu kadaloob u fadhiistay ayuu tixdan gaaban oo habaarka ah talyaani guudka u suray. wuxuu yidhi, talyanow, sidii duur la gubay dabiisu kaa dhaafiye, degeladu ku wada naaqusoo damug lagaa yeeliye, dekadaha wax kugu qayliyaa kaaga soo dege e duufaan ilaahay ku geli, sida dabayleedee deegaanta seeg oo gugaa da-ay ha noolaan. sidii ari wadeecuu dib jiray weerku daba yaaciye, da'ugaad martaba kaaga yimi, danabku xooraaye mayl soo dabaashaa ku qabay, oo waaga soo degaye dusha kaaga soo dhace, xabado sheeri soo diray. duriyaadka sheekhaanu nahay laga ducaystaaye raggii keenya soo wada derderay, kugu damaashaadiye dayuuraduhu kaa joogsade, oo dowlad waa noqo e dalka yaga ilaah kaa kaxee, duhur dharaareede dibna ha ugu soo noqonin, waa kama dambaystii. wixii ka dambeeyey lama mooga. waa 1941. kutubta taariikhda ayaa laga heli karaa jab iyo guuldarro wixii talyaani geeska afrika ka qabsaday oo faahfaahsan. dhulsaraadka eritrea, buuraleyda etoobiya iyo baranka soomaaliya ayaa ciidamadoodii laga ugaarsaday. dhulkii ay gobolka ka haysteen oo idilna maalmo kooban ayuu ingiriiskii kagala wareegay. saraakiil iyo askarba waxay noqdeen wax la laayay, wax la qafaashay iyo wax iyaga oo baxsad ah hawdka iyo lamadegaanada kulul ee afrika oon ugu baaba'ay. culumta askartu siday qabtana talyaaniga waxaa jabkaa ugu wacnaa awooddii sarraysay ee ingiriiska iyo xeeladihii uu dagaalka u adeegsaday. ha yeeshee soomaalidii xilliyadaasi waxay dareensanayd geeraarkii guuleed jucfe iyo gabaygii axmed maxamed ay ku gani jireen inay iyaguna qayb weyn ku lahaayeen dowladdii musoliini guuldarradii ku dhacday. waxay rumaysnaayeen habaarka gabyaagoodu inuu cid walba halis ku noqon karo oo xataa dowladahana uu waxyeeli karo.